ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا أليما، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار. وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي بقى مهدس كله إن سوى فجي إن صلاة المغرب جماعة كتكنو فردقنا إلهي بقى نسوى فجي ونعمد إلهي إنكو شكرنا نواجب وياه. مساجد عد ولي أمة فريسته عد إلهي جعلها بفريسته هالكاس. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. حدي الله كل أن تنظر أركتن فرق مساجد اللازمي إيمانك أو مرخاتك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مساجد عدو لي وما فريسته من إله إلا كل كيس الرجينيا وإله أمر كيس قاتي وطريق النبي مر عليه الصلاة والسلام وقلبي إيمان كجرون بان مساجد فريسته بالهير. marka ujeedadaan soo fadhiisanay ujeedada kale maaha. waxaan isku baraarujinaynaa awaamirta Ilaahay. sharafteenu halkay taallaa, halkay bayna ku jirtaa. adduunyadan ujeedadana noo keenay maxay tahay? waxaa la yidhi qofka bini aadanku saddex arrimood haddii u kala saari waayo oo u kala cadaani weydo makhluuqaadka u ka liitaa baa la yidhi. qofkaasi bahaayimka u ka liitaa. qofku hadduu garan waayo xagguu ka yimiday waxa lee waxa uu qiimo ku fadhiya ma jirto. xagga loo socdo hadduu garan waayo waxa lee waxa uu qiimo leeyahay ma jirto. iyo ujeedadii adduunyada loo keenay hadduu fahmi waayo maxaa laga abuuray, xagee baad ka timiday, xagee baad u socotaa, adduunyada maxaase lagu keenay. ya bani aadam khalaqtuka licibaadatii falaa talcab waqasamtu risqaka falaa tatcab fatlubnii tajidnii in wajadtanii wajadta kula shay wain futtuka faataka kula shay waana uxibu ilayka min kuli shay. ya bani aadam ina aadanow buu ilaahay ku yidhi xadiis alqudsi, anigaa ku abuurtay oo ciinaadi caabudaan ku abuurtay ha ciyaarin, arsaaqadaadana waan ku qaybiya ha isdaalin. fatlubnii aniga iraadi waad helaysaaye in wajadtanii haddaad aniga heshay buu ilahay wax waliba waad heshay. haddaad aniga iweydase wax waliba waad weyday. adduunka o dhan haddii keligaa lagu siiyo oonad ilaahay cilaaqaad la lahayn adduunkaas waxba kuu tari maayo. adduunyada ninka u faqiirsan haddii aad tahay walaakin aad ilaahay cilaaqaad la yeelato oo dariiqii nabiga aad marto calayhi salaatu wasalaam adduunyadii aakhira adigaa ku liibaanaya. cabdii turiidu wa ana uriidu laa yakunu ila ma uriidu in aطactanii fima uriidu aataytuka ma turiid wain casaytanii fima uriidu atcabtuka ma turiid uma laa yakunu laka ila ma uriid. ilaahay sidaasuu leeyahay xadiis alqudsi. addoonkaygiyow adiguna sibaad doonaysaa, aniguna sibaan doonayaa.
sidaad arrintu doonaysa noqoni mayse sidaan doonay noqonaysaa buu ilaahay yidhi caza wajalla in atactanii fima uriid haddaad aniga i adeecdo ood amarkayga qaadato sidaad doonaysana anigaa ku yeelaya nabadgelyaad doonaysaa nabadgelya waan ku siinaya walaaltinimaad doonaysaa khalqig oo dhan baan qulubta jacayla kuu gelinaya barwaaqaad doonaysaa barwaaqadii anigaa ku siinaya barakaad baad doonaysaa barakaadkii anigaa ku siinaya sharaf baad doonaysaa sharaftii anigaa ku siinaya guul baad doonaysaa guushiina anigaa ku siinaya gargaar baad doonaysaa gargaarkii waad iga helaysaa inaan kula mac noqdaad doonaysaa macyadiina waan kula dul taaganahay waa goorma weeyaan in atactanii fima uriid sidaan doonayo haddaad igu adeecdo buu ilahay yidhi addoonkaygiio ood amarkayga qaadato oo dariiqa nebiga aad soo marto calayhi salaatu wasalaam oo diinta aad ku camal fasho waxaad doonayso anaa kula dul taagan buu ilahay yidhi wa in casaytanii fima uriid laakiin digtoonow sidaan doonayo haddaad yeeli weydo haddaad diintaas sidaan u soo dejiye aad u qaadan weydo ood hawadaada ku socoto oo dariiqa nebiga mar weyda calayhi salaatu wasalaam adduunyadan iyo aakhira dhibaataad mudanaysaa dhibaato waad daalaysaa tacab baad mudanaysaa waxaad doonaysaa heli maysid muraadkaaga heli maysid daal baad ku jiraysaa adduunka dhib iyo rafaad aakhirana dhibaataa ku dambaysa waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atatka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa wakadalika najzi man asrafa walam yu'min biaayaatina walacadaabu alaakhirati ashaddu waabqa man acrada can dikrii ilaahay wuxuu leeyay ninka diintayda ka jeesta amarkayga ka jeesta aniga cilaaqaadi la yeelan waaya muxamed calayhi salaatu wasalaam dariiqiisa soo mari waaya adduunka wuxuu doonay hadduu haysta maaliyad waxaan ku noolaynaynaa nolol cidhidhiya go-aanka ilaahay baa go-aamiyey faysalo rabbaaniya weeyaan maaha ra'y falsafana maaha ninka adduunka ugu maaliyad badan haddii iimaan iyo taqwad iyo camal saalixa uu rabbulcizaha cilaaqaad la yeelan waayo adduunyadana cidhiidhi iyo diiq iyo dhib buu ku noolaanaya aakhirna dhibaata u dambaysa walciyaadu billah ilaahay nagama yeela aamin dhaada walaaliyaa wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa adduunyada cidhiidhi baa ku noolaynaynaa aakhirana maxaa u taallaa isagoo indhalaan soo saaraynaa buu ilahay yidhi isagoo indhala wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wasumman wabukma ma'waahum jahannam kulamaa khabat zidnaahum saciira dadka munaafiqiinta iyo mujrimiinta qiyaamaha waxaan soo saaraynaa buu ilahay yidhi iyagoo wejiga ku socda wejiga yaa rasuul allahi baa lagu yidhi sidee dadku wejiga ugu soconayaan wuxuu yidhi kii lugaha ku socodsiiyey baa wejiga ku socodsiin qiyaamaha laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah rabbulcizaha ku socodsiinaya keligiibu waa khaaliq weeyaan siduu doonuu yeelayaa laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun wuxuu doona hadduu sameeyo cid ka daba hadlaysa isaga ma jirto wahum ay aljinni walins jinkii insugu haddii amarka ilaahay ka beedhaan waa la su-aaliyo ciqaab baa ku dambaysa dhibaataa ku dambaysa haddaad amarka ilahay jebisa adigu laakiin isagu waa facaalun limaa yuriid siduu doonuu yeelayaa dulcarshi almajiid carshiguu saxiigu yahay waa rabbulcizo weeyaan caalamkan oo dhan keligii buu abuuray keligii biduuni an yastaciina bimalakin muqarabin walaa binabiyin mursal markuu adduunkan samaynayey malagna lamuu tashan mursal la soo dirayna ra'yi ilaahay muu weydiinin huwa aladii yusawwirukum fi alarxaami kayfa yashaa badiicu asamaawaati waalardi huwa alkhaaliq huwa almusawir ka wax sawir waa isaga weeyaan halkaasuu ilahay nagu soo dhammaystira caloosha hoydeen siduu doonuu yeelayaa kaa madax ka lugaha ku socodsiiyey ayaa qiyaamaha madaxa ku socodsiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo indhala la soo saarayaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa markaasuu addoonku odhanayaa ilaahow maxaad indhalaan ii soo saartay waan indhaqabay adduunyadii waqad kuntu basiira nin ree hebel aan ahaayo indhaqaba ayaan ahaayo maalqabeen aan ahaayo nin laga dambeeyaan ahaayo qabqablaan ahaaye yaa rabbi indhala'aantani waa sidee kadalika atadka aayaatuna qur-aankii oo cad baa kuu yimiday khayrkaa lagugu yeedhay ducaadii baa kuu timiday rusushii baa kuu timiday sharcigii baa lagu sheegay fanasiitaha waad ka jeesato waad ilowday waad ka kibirtay wakadalika alyawma tunsa annaguna maanta raxmaddii waa kaala jeesanay sidaa dooniba yeel tolkaan ha ku anfaco weeyaan lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaama yafsilu baynakum yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah walamru yowmaidin lilah
nanna wax ku tari maayo maalintaas laakiin maxaa laga rabaa intana halkan joogto amarka ilaahay qaado diinta ku camal fal ilaahay cilaaqa la yeelo isaga talada u dhiibo makhluuqa adduunyada ku nool oo dhan waxaad u aragtaa inay waxna anfici karin waxna dhibaateyn karin ilaa amarkiisa maahin yaqiinta allah inagu arsaaqo allah inna wada si yaqiinta saadiqa caalamkeeni maaha waxa adduunyada lagu keenay inaad ilaahay raali geliso adduunyadani ibtilaa baa ku nool ibtilaa alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum adduunyadani waa daarul ibtilaa waa lagu eegaya waa lagu imtixaamaya inaad ilaahay tala saarato iyo inaad makhluuqa tala saarato lagu eegaya inaad ilaahay ka cabsato iyo inaad makhluuqa ka cabsato lagu eegaya inaad qalbigaaga jacaylka ilaahay geliso iyo inaad makhluuqa jacaylkiisa geliso lagu eegaya qalbigaaga waa ibtilaa waa lagu eegaya tajruba laga qaadaya sida lagu heli maayo jannada waa lagu jarrabaya ahasiba an-naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun miya lagu deenayaa iimaankan iyo lafdiga sheeganayaan maya waan jarrabaynaa buu ilaahay dadka waan imtixaamaynaa masiibaanu keenaynaa dhibaataanu keenaynaa colaad baanu keenaynaa dhaqaalaha ka naaqusaynaa qaraabadaan kolba mid qaadaynaa iyo kan xanuunu keenaynaa waxaasoo dhan waa maxay weeyaan waa ibtilaa waa la eegayaa inuu mu'min yahay iyo inuu mu'min kaamil ahayn baa la eegayaa mu'miniin kaamiliin aliimaan allah inaga dhigo daarul ibtilaa baan ku jirnaa waa ikhtibaar baan naga qaadaya imtixaan baa lagu wada jiraa hadda imtixaankana maalintee la sheegaya maalinta qiyaamaha la sheegaya fa amma man utiya kitaabahu biyamiinihi fayaqulu haahum iqra'u kitaabiya wa amma man utiya kitaabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitaabiya walam adri ma xisaabiya ya laytaha kanat alghadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya niki kitaabka maalinta qiyaamaha midigta laga siiyo buu ilaahay yidhi farxad buu khalqiga meedaanka qiyaamaha taagan ayuu la soo dulmaraya isagoo farxaya wuxuu leeyahay maanta imtixaankii anu waan helay waan guulaystay janna ayaan helay ridii ilaahay baa ii waajibay imtixaankii waan ka soo baxee kitaabkayga waa kaasi shahaadadii akhri aniga fa amma man utiya kitaabahu bishimaalihi ka gacanta bidix laga siiyo ilaahay nagama yeelee wuxuu leeyahay yaa laytanii lam uuta kitaabiya way maxaa la ii siinaya kani yaa laytaha kaanat alqaadiya way maytan sootii wax tagay ahayd maatan may sidii lagu dhaafaa ma aghna anni maliya hadduu maal qabeenaha waa adduunyada daba ordayay wuxuu leeyahay maalkii soo kay dagay maalkii baa dagay halaka anni sultaniya hadduu madaxtooyo doonayna madaxtooyadii waa tay dagtay ma buu leeyahay cidna ugu difaaci mayso maalintaas uscanaanaya canaantaasi waxba u tari mayso caalamkan waxaana noo keenay inaan sahay qaadano weeyaan daarteeni maaha الناس نيام واذا ماتوا انتبهوا dadku way hurdaan baa la yiri markay dhintaana hurdada way ka kacayaan waxa dad maanta adduunka ku nool oo way hurdaan goormay baraarugayaan mar alle marka naftu ay ka baxdo ee qabriga sida lagu dhigo ayuu qofku baraarugayaa abdi ilaahay baa oranay adoonkaygiyow ghasaluka reetolka way ku soo meedeen wa kafanuka kafan bay kugu soo xidhxidheen wa dafanuka fi turabi ciidana way kugu soo aaseen law dallu ma'aka ma nafa'uka haday kula soo gali lahaayeen qabrigana kuma yanfaceen hubkii adduunka u dambeeyay casriga haday soo qaataan qabriga kula soo galaan kuma yanfaceen ما بقي لك إلا أنا يا عبدي أدونك إذيو عدك لكم مهر إلا أنكم باكو هري أجمعت الدنيا من الدنيا جمعتك الدنيا ما لا أرسلي مسيلا كصور لسي أدونك أتركت الدنيا من الدنيا تركتك أدونك ما لي كي مدي مسا أدونك ما كاتكي تتكوى الله بدا ويا نين الدنيا كتكي وآخرة دي سيد تكي وكون كهرب جعلين وآخرة تقوى الدنيا كتكو iyo ninay adduunyadu ka tagtay oo isagoo adduunyada daba orday geeridu timid weeyaan caalamkani maaha sharafteena adduunkan iyo sharafteena aakhira meel kale ma taalo amarkiisa la qaato dariiqa nabiga oo la mara calayhi salaatu wasalaam fa amma man daga wa athara alhayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa fi quraanka wakaas allah inna fahamsiya quraanka قرآنك هو داعي ما ننقصي هو داعي قرآنك هو قولك إلهي هو كلامك إلهي إله واحد كداعية سقاد الدين داعية كشقية إلهي با الدين دي كشقية الله هو الداعي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلهي با داعية وضطي حاجة الجنة وقوية داعية
إلهي با داعية ونارتك هقدقية إلهي كو أبو ريبا داعية وكو دواقية نحريستي سيئة بركات كيسا صلاة كوية للهيد بكو يريا إساقا كو يريا إلهي جل جلاله فأما من ضغى نك كبرا أدويدا انتو كنو لي الدين تدبرك أجيديا وآثر الحياة الدنيا نولشنا الدون كان حقيقة ذي مودية دمور دبي الهيري فإن الجحيم هي المأوى أبا القسوى جحيم ويان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نك إله إلا كل قيسة كسي عبصودا قيامها أوسي سايقاتا إله إلا كل قيسة سر الجيا نفتي سواح جعش هنا كالريبة أبا القسوى جنة بالهي نرجع عليه الصلاة والسلام مالين وأصحابته أدر دار ما يوحو كيدي يا أبا در جدد السفينة فإن البحر عميق يا أبا در دوننا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية وربضع باور ما لقوا مركريا شيء كده بضع محل لقوا تلاقي لقوا مر باور مس ديارين مس مركب أدوية إيمانية تقوى دي عمل صالح لقوا مركريا بس نين كيد أدونكم بلا تقوى بلا إيمان باكون نولان وأنني يريد بدأ ساكم مريا الله مدعي كريسا واللي قيسا يا أبا در دوني ده جديد سو إيمانك جديد سو تقوى ده زياد سو بدو هديك الله يكون قيسا واكثر الزاد فإن السفر طويل يا أبا در صحيح هذا نزو زياد سو سفر كعد مرس ودري هاي ورقف آخرته وصول الله يقول لي ما دركتين شيء كده أرولا لا يسافر كل مرة وديريا سفر بعيد عالم كان عبد اللحظة سنجوكتو قبر كي مثلا كجريسا عالم كان أدوية ما تكون لهن وريري عالم كقبر كبدن صديق رضي الله عنه أبو بكر عمر يسوع أنتو أدون كان جوجي صدح يلحد بوها لكن هذا ما يقصنوا قبر كجرا كن يافر بقول يزيادو سبب عالم كنا كنا لهن وريري عالم البرزخ باكبدن وعي علم الدين نينكا قبرغا مدير كجرا وانينكا كجرا افرتن كن اوسنو نينكا ugu waqti yar xaga caalam البرزخ ee isla degdegaan qiyaamo ugu soo dhaco waaninka kujira afartan kun oo sano qabriga nabi Isa alayhi salaam ayaa qubura soo maray marka kuwii la socday baa ku yiri Ciisa alayhi salaam ilaahay noo weydiiyay in dadka quburaha ku jira mid noo soo nooleeyo oo wareysano caalamul barzakh xaaladeeda Ciisa alayhi salaam laba rak'o tukaday ilaahay buu bariyay qabrigu mid ka soo baxay markaasuu wareystay wuxuu yiri anigu waxaan ahay zamankii nabi nuux baan dhintay alayhi salaam kii soo baxay qabriga ka sheekeynaya zamankii nabi nuux baan dhintay alayhi salaam ila yawmina hada sankaratul maut kiisi xanuunkiisina igama bixin buu wali يا شيخ والله عيار ما كجرنا عيار لعب لا هو يجينا نضجع يا ديودن وين سهرت ديود مات يا أبا در فاكثر الزاد فإن السفر طويل يا أبا در صعيدنا زياد سوء سفر كوديري هاي وخفف الحمل فإن العقبة كؤودا عليس كنا يسكيره كابد الله مريا وأدكت هاي كدرت الله قبح هاي وأدكت هاي واجب كسرات ويان نيجا ذنوب تبدأ نجيب كسرات مري كريم هاي والله ليان هل كان ماشي إيمانك أي قلبك الله وصفينه ويان ماشي درك أيو علاش اللي قد درجينه معها النبي عليه الصلاة والسلام أبا جحيفة أيام ما لنو يمد سوق دعداعية والنبي رد إلى صعني مركب النبي وكيري أكفف جشاءك عنا يا أبا جحيفة فإن أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة وكيري ورداعد حقا نغلا دارو بكيري داعد هذا دتك أدوية وقد درك بدني وأكو قيامة وكاج بدني dadka adduunka ugu daraga badan waa kuwa qiyaamaha ugu gaajo badan fakana ida taqadda la yatasha wa ida tasha la yataqadda aba juhayfa maalinta kadib haduu qadayo muashinin haduu ashina mu qadinin yani afar ila 20 saaca har mar kaliya wax cunay mar kaliya nabiga kaleey salaatu wasalaam maalin wuxuu arkay Aisha oo laba jeer cunto cunaysa markaa nabigu keed ya Aisha maanta shaqo kalimaad oo ida calooshada ma hayne
الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين. يا عائشة لبجر عن طلع مالنتي وإسراف إلى هنا مسرفين تمجع له. إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب إياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى تراقعيه. بكير عائشة هداد دون سنة ذنك قيامها إلى كل أن تعود ما لنقشو أنت ونينك مسافرك وقاعدنا إلا يقدويرك استعمال لقى مسافرك راشم بدأ بوقاتا إنه قالي كرو مشاكا إن يرو قالي كرو الدوير سنة نينك مسافرك وقدر الله والنبي كير عائشة dadka tujaarta la aqleeyaan hal fadhiisan muuminiinta iyo muttaqiinta la fadhiisan meel waxaan kaaga digayaa Aisha ibn Kaydi dadka tujaarta la aqleeyay meel la fadhiisan fuqarada iyo muslimiinta meel la fadhiiso foobkaana habadilin ilaa aad rakacday samahine ilaa aad ka karato ruqa hada xaalkeena maanta ka warrama ayna nahnu min ar-rasul alayhi salatu wassalam nabigiina kuma taalkeen ka taagna سيد البشر خلقك كيف كرامه بنا قاربا قرنا زمن رسولك باسي برسمه جرينده يا مسكين مو الهي مو واي عرض علي ربي ليجعل لي بضحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكني أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرت إليك وحمدتك نبي عليه الصلاة والسلام حيري إلهي بأي بندقي بورها مكة يا لين ذهب لي قدقو فقلت مركزا لله يا ربي ما يقدا يا ربي ما دون يقدا سبب يا الله مالنا وان جونو مالنت ان جودنا وان كبري وان كو تضرعي مالنا وان درغيو مالنت ان درغنا بيدوان كوكو شكرين بوكيدي صلى الله عليه وسلم كازكموها سيد البشر خلقك إلهي أبو لك وكرامة بضنبوها وإنك لعلى خلق عظيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إن فضله كان عليك كبيرا داخل إلهي بدوش سكويناتي خلقك كي أكرم بضنبوها أئمة الإسلام باسكو اتفاق الرنتاس سيد البشر عليه الصلاة والسلام سيد الكونين جنكي إنسي سيدوا يا مالين قار أصحابك كمان مال انتي فريستان مد بالنبي بو أماني قار بايدي أنا إبراهيم باي عجبية عليه السلام كوكلا يدي أنا موسى عجبية عليه السلام كوكلا يدي أنا سليمان باي عجب قليه كوكلا يدي أنا وحي عجب قليه عيسى عليه السلام مركز النبي كوكو بحي صلى الله عليه وسلم وقص له ودول عدي مركز قد سمعت مقالتكم وراهدي إنه دوان مغلي mid walba nabi baa yu amaano nabi baa cajabiye nabi walba darajada ya amaantaana u lahaa allah anigana dhageysta hooyo dhageysta allah waana habibur rahman wala fakhr khalqiga ilaahay ku jeclaabana faanaga ma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'madii ilaahay ku siiyay ka sheekay baa laga yiri ma maalbaa ni'madaas diin baa diin iyo taqwa iimaan baa la siiyay amal saalix la siiyay dambigiisa baa loo dhaafay معصوم بالغدغي سيد بالغدغي رسول بالغدغي نبي بالغدغي عليه الصلاه والسلام جميع الانبياء جميع المرسلين مركو لا اله الا الله النبي والبا نبي كستي لا مجيسو يري يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وقيل يا نوح ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس جميع الأنبياء نبي والبا إلهي مرك الله علي مجلسه يري قرآن كما قلت الله يا محمد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها المزمل يا أيها المدثر ضاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآنك متى يا محمد وما محمد باكوت الله لكن لفظ دوار كما تعلم يا محمد يا أيها كان الدريو كان الدورتيو كان الزدوبيو ياسينو طه هذه وركرام بينيتاس